الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى وحو noogu sheegay kitaabkiisa munazalka ah inuu maxabo iyo wanaag dhex yeelay dadka guurka xalaasha wadaagay oo rabbi subxaanahu wa tacaala diintiisa siday u banaysay isku guursaday. waxaan soo daraasaynaynay mowduuc ku saabsan xagga sawaajka oo arrimaha looga baahan yahay dadka guursanaya ayaanu ku soo jirnay. waxaa noo soo dambeeyey qofka muslimka in laga doonayo inuu doorto axad islaama oo diinta islaamka ku hagaagsan, iyo arrimihii ku saabsanaa Ummu Sulaym oo Abidalxa ku xirtay inuu soo islaamo markaa ka gadaalna ay guursan doonto. muslimiinta qaarkood oo ka jawaabay in aan laba qofood oo qofna uu yahay qof cafiifa oo hagaagsan, qofna faasiq yahay in la isku daro aan la ogolayn. marka allah subxaanahu wa tacaala dadka cabsada oo diinta islaamka ilaaliya hala noqdo. wayl iyo halaag kulligii waxau ka imaan doonaa in qofka lagu daro qof aan diin lahayn. qiso cajiiba ayaa ka dhacday caalamka meela ka mid ah. waxaa dhacday inuu nin ku daray inan ou dhalay oo aada u yar, nin shaab ah oo qamriye cabo ah. markuu ku daray inantii ayuu la safray, wuxuuna ula safray inuu hoteel geysto si uu u soo guto shahrul casal, yacni bisha la yidhaaha bisha malabka, waa bisha ugu horeyda curuuska ah. wuxuu la tegey fanaadiqda amase hoteelada amase meelaha loo yaqaano, yacni loo yaqaano amaakinta lagu nasto lagu raaxaysto oo loo yaqaano hoteelada ama fanaadiq ama looj ay dadka gabal yidhaahdiin, ayuu la tegey oo ku yaala lubnaan. halkaas markii uu la tegey ayuu la yacni meelaha ka mid ah hoteelkii ayuu la galay. wuxuu sameeyey habeenkii ugu horreeyey inta uusan ugu tegin jamaaca ka hor ayuu wuxuu ku qasbay inay khamro cabto. khamradii inay diidda ayay damcday, waa ku ijbaaray, qasab ayay inantii ku cabtay. wixii uu rabay ayuu sameeyey, way sagraantay, akhiiran asaguna wuu sagraamay. markaa ka gadaal ayay ka baxday qowladii ay ku jireen ayadoo qadaa-ulxaajo bannaanka ugu socota. qadaa-ulxaajo markay suulidii u gashay oo ay ka soo laabatay, waxay gashay qowladii ninkeedu ou joogay oo sakraana, qowlad aan ahayn. waxaana geeyey sakraanka sababtii. qowladaas ayadaa rajul ayaa ku jiray, ilaah ou xaaladiisa og yahay. halkaas ayuu ninkii inantii firaash ka dhigtay ou barkaday, agtiisa ayayna ku bariday ilaah waa berigii laga gaadho. ninkeediina waxau jiifaa yacni qolkiisii isagoo keligii ah, waana natiijada sakraanka, waana dhibaatada diin la-aanta. inantaada oo nin aan diin lahayn aada ku dartana natiijada noocaasa ayaa ka imaanaysa, ayada oo raacdana dhibkaas ayaa ku imaanaya. marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed Abudalxa markuu Ummu Sulaym doonay intay uusan islaamin ka hor, waxay ku tidhi waa lagu jarinayaa, adigoo kalena lama radiyo, laakinaka rajulun kaafir wa ana imra'atun muslima laa yasixu lii an atasawaj. waxay tidhi adigu nin gaala ayaa tahay, anna muslimad baanahay, inaan ku guursadaa marka ma ansaxaydo. ee waxaad yeelaysaa niyow islaam oo rabbigaa ka baqo, alla ka xisho oo rabbigii ku halda isu dhiib oo diinta u kaalay. markaad islaamta ka gadaalna sidaa igu imaad, mahar kalena kugu xirin maayo. sidaa ayay arrintii noqotay. dadka muslimiinta waa inay digtoonaadaan digtooni kulligeed oo aan dawaahirta iyo waxyaalaha muuqanaya lagu qadeecin. yacni yaan qofka muuqaalkiisa ku qadeecin. munaafiqiintaba alla markuu ka sheekaynaya wuxuu yidhi: waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum, markaad aragto jismigooda ku cajab gelinaya. wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musannadow alla ku sheegay subxaanahu wa tacaala. bal qaabdaradooda u fiiriso, sida aad yacni ugu malaynayso inay kidaa yihiin oo nuucaa yihiin, ayaa haddana marka dambe waxaa la gaarsiy inay khushub musanada yihiin oo wax ay yihiin aan la arkin.
marka waxaa la doonayaa qofka daahirkiisu inuusan ku qadeecayn oo aan balaayo kugu dhicin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayadoo nin la joogaa nin soo maray markaa uu yidhi ninkii la joogay ninka halkaan maraya ka waran wuxuu yidhi rasuulkii allow haadaa xariif wuxuu xaqiiqa ku yahay in khadaba an yunkax hadduu gabar soo doono in loo guuriyo wain shafaca an yushafac hadduu erga ahaan u yimaado u yidhaha madaxayga dad ha lagu daayo in lagu daayo wain qaala an yusmac marka hadduu hadlaya in la dhegaysto nabigu waa aamusay waxaa soo maray nin fuqaraa muslimiin ka mid a ka warran buu yidhi kan wuxuu xaqiiqa ku yahy u yidhi hadduu gabar soo doono inaan loo guuri hadduu hadlayo warkiisa inaan la dhegaysan hadduu yidhaha madaxayga dad ha lagu saamaxa inaan laga yeelin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haadaa khayru min milli lardi midla haada ninkan aad liidaysaa ka khayr badan dhulka wax buuxiyo oo ninkii hore oo kale ah maxaa yeele kii hore ama munaafiq buu ahaa ama faasiq buuba ahaa waa midaan khayr lahayn marka waxaa la doonayaa dadka daahirkiisa inaan lagu kadsoomin yaan daahirku idin khadeecaynin iyo waxa idiin muuqanaya ee waa inaad qofka diiniyan akhlaaqiyan suluukiyan aad u eegtaa laakiin yaysan ku khadeecaynin muuqaalka iyo dhaldhalaalka iyo qofka qosolkiisa hore waxyaalo badan ayaa ka soo baxaya dadka bani aadamkaa dadkuna waxay isku dayaan ceebaalkooda iyo qurunkooda iyo diin la-aantooda inay qarsadaan in badan oo ka mida marka qofkii anigu wanaaga uga jeeda yaysan arrintu kaa noqonin waxaa kaloo halka yaallaa in ay laasim tahay oy lagama maarmaanto ay waajib tahay ninka khaadibka oo inanta doonayaa inuu eego inantuu doonayo inanta muslimadda oo la doonaya ayadana oo ninka islaamka doonayana waa inay ayaduna ninka iska eegto laazim labada qofood inay isku qancaan labada qofood haddaysan isku qancin maya abu hurayra wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam anigoo la jooga nin baa ugu yimid markaasuu u sheegay annahu tasawaja imra'atun min alansaar inuu guursaday gabar reer ansaareed ka mid ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam an nadarta ilayha war ma fiiriday gabadha ma iska soo aragta markaabuu yidhi lah maya rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fandur ilayha orod inanta soo arag fa ina fii acyuni alansaari shay-a reer ansaareed indhahooda shay ba ahaaday yacni sikar waa indha yaryariin xoogaa marka hadday indha yaraanta inantu kugu anfacdo amaad orod doonto berrita inan shiinahaan guursado indha shiina leh oo aan qurux samayn hadda iska soo eeg buu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkaa muslim iyo nasaa-i iyo keyrkood baa soo saaray waxuuna nabigu ku cileeyey u fiirso iska soo eeg baa la inanta munaasabadu waxa weeye waajib weeye ninka khaadibka iyo inanta makhduubadaa in ay is arkaan oo ay laba qofood oo war iska hida yihiin cala aqal oo laystuso reerka yani inanta laga doonayaana waajib bay ku tahay inay inanka inanta tusaan hadduu inanku gabadha doonayo ase ay weysa inanta ninka u diidanayn si ay isugu qancaan labadii qofood waa inay labadii qofood is arkeen taas baa la doonayaa ma ahan in laysku khadeeceeyo diin baan leeyahy anigu waa fiican anigu keliyaabanahay ma aha yaan laysku khadeecaynin qadiyadda noocaas yaan la odhanin ma wiil islaamaa diidaysa hadalka uu rasuulku ku cileeyay aragtida lays arkayo undur ilayha bawi fa ina waxra an yu'dama baynakuma orod soo eeg kaas ayaa ku dadaal badan maxabada baynkiina inay daa'imteen ood isjeclaataane maxaa yeelay yu'damka waxaa laga wadaa haddaad hadda iska heshaan dabcan waad iswaafaqaysaan waana wada noolaanaysaan buu yidhi sala allahu calayh wasalam riwaayadda siyaadada sheegtayna tirmidi iyo nisaa-i baa sanad saxiixa ku qoraya ibnu maaja marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala waxaa la doonayaa dadku inay is og yihiin oo is arkeen aragtidan ha loolama jeedo inay baala iskala soo cuntayaan billa caley waxay dadku u yaqaaniin iyo inay dhahan saaxiibbaan nahay oy gayrasheeyaan oy soo wada tuntaano balaayo ku dhacdo ee aragti baa laga hadlay soo arag baa la yidhi ee la soo tuma lama dhihin soo arag baa la yidhi ee kaala cunto la cuno baargey lama dhihin waa in arrintaas iyadaa laga fiirsadaa allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala waa inay aabbayaalka waa aabba iyo hooye ay saamaxaan aragtida inanta la arkayo gabal baa waxay yidhahdeen suura shamsiya ha loo qaado ha loo masawiro war yaa u masawir kugu yidhi haye yaa masawir kugu yidhi inanta oo wejigeedii bannaan yahay oo jirkeedii yacni ninka kale oo arkayo wejigeeda ayaa la doonay inuu soo arko amaa jirka intiisa kale amaakin badan baa loo ogolay ninku inuu arko laakiin waxaa la doonaya isagu inuu ku dadaalo soo ku arki lahaa yacni in dharka xataa laga yareeyo culamada qaar baa sheega markii inanta iyo ninku inay sarkaan la doonayo oo inanta aan dhar waaweyn aysan yani ku xirxirayn waayo rasuulku waxau yihi sala allahu calayh wasalam idaa qadama axadukum almar'a fain istadaca an yandura ilaa maa yadcuu ilaa nikaxa falyafcal axadkiin hadduu gabar doonayo
hadduu karo inuu ka eego wax nikaaxeeda ugu yeera ha sameeyo uu sala allahu alay wasalam berrita inuu yidhahdo waa laygu khayaana ma aha hadduu karo inuu ka eego wax nikaaxeeda ugu yeera ha sameeyo u yihi sala allahu alay wasalam abu daawuud imaamu axmed iyo keyrkood baa sanad saxiixa kusoo saaray bal xadiidka isaga eeg sida uu arrinkiisu yahay idaa khadaba axadukum imra'a falaa junaxa caleyh an yandura ilayha buu rasuulku yidhi axadkiin hadduu gabarh doonayo inuu eego korkiisa dembi kama aha idaa kaana inamaa yanduru ilayha likhidbati haddii uu yahay mid u eegayo doonidda kali ah wain kaanad laa taclam haba ahaato mid aan ogeyn meeluu isugu soo aadiyey ayadoo dhan iska bedelayno xataa eegay arrinkaa isagaabaa dhacay mana ay oga inuu ninku eegayo iskama aysan jirin albaabbay ka gudbayda mana aysan ogeyn mees inuu nin taagan yahay markaasuu asagu eegay xataa dushiisa dembi kama ahan buu yidhi rasuulku inantou doonayey oo khidbada ku jirta haddii ayada tahay saasuu leeyahy sala allahu alay wasalam war diinta wuscigeeda iyo wanaaggeeda eega iyo san anagu aan yeelayno imaamu axmed iyo keyrkii baa sanad saxiixa ku soo saaray culammadu waxay isku khilaafeen aragtida habkeeda fuqahada waa qadareen gabal wejiga iyo gacmahay ku qadareen munaasibna maaha sidaa inay ku hadlaan shaarica xakiimkaa wuxuu u saamaxay ninka inuu haweenta eego qabla alcaqdi weligana laga dooni maayo inuu yidhaahdo inanta ma arki kartid culammada gabal baa yidhi xijaabkii weynaa waa inuu ka fududeeyo adoogu saas ayay culammada qaarkood odhanayaan calaa kullin waxaa lays amray in inantii la arko ayadana ninka ay guursanayso waa inay garasho u leedahay ama haddii looga sheekeeyo qof ay ku kalsoonto uga warramay ku qanacday oy saas ku qanacday laakiin nin hagaagsan inuu yahaan u malaynaynaa ma aha aragti baa meeshaan loo baahan yahay wa rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala laba qofood oon is arkin hadday intay iswaraystaan ay isku kalsoonaadaan oo ay dad ay ku kalsooyin u kala warramaan oo ay dad noocaas ku fiican yihiin waa la hisiin karaa hadday dhahaan waan ku qanacsanay qof walba waxuu la yimaado raalli baan ku noqonayna hadda arrinku sidaa yahay wa ilaa haddaysan ahayn dadkii waa in laystusaa oo alla laga baqa subxaana wa tacaala waxaa kaloo loo baahdaa xagga dibbiga inta aan guurku dhicin culamada qaar waxay yidhahdeen waa inuu dhacaa faxsi dibbi ah maxaa yeelay rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiix ayuu ku yidhi fara min almajduub ka firaarika min alasad waxaad ka carartaa qofka juudaamka qaba saad uga cararaysa libaaxa oo kale xadiid bukhaari ku sugan ba odhanaya xadiid kaloo bukhaari ku sugan wuxuu sheegayaa xoolo jiran iyo xoolo caafimaad qaba inaan laysku darin marka adiladaa waxaa laga garanayaa in haddii ay jiraan cudurro qofka ka hayo aad u dhibaya uusan dadka u qarin taas ayaa la doonayaa waayo cudurro waxaa jira qofka haddii laga helo nikaxa la fasaqo sida cudurka baraska juudaamka jinniga daa'imka iyo inanta oo farjigu ka udan yahay ama ninka oo xiniin oo waxba tari karaynin arrimahaas waxaa lagu fasaqaa nikaaxa marka in qofkii loo qariyo ma ahan marka faxsi dibbiya haddii la sameeyo qofka lagu yidhaahdo caafimaadkaaga sidee weeye ka waran ama ha la baaro mushkilo kuma sugna sida adilada laga garanayo waayo rasuulku xadiid axmed iyo ay qoreen ibni maaja oo saxiixa wuxuu ku yidhi laa darara walaa diraar in laysdhibo ama dhib laysku amaalmariyaa ma jirto qofka haddii aad qabtid cudur uusan u dul qaadan karin ama uusan isagu kugu qaadanin ha u qarinin rabbi ka baq subxaana wa tacaala nin baa waxaa laga yaabaa inuu qabo cudur galo lagu sheego ama jabta oo kale islaam buu doonayaa waa u qarinayaa xaaraan weeye mana banaana waana daalib mujrim ah looma baahna hay inan baa waxay qabtaa suuxdimo oo kale nin baa doonaya waa loo qarinayaa xaaraan weeye cudurradaa la qabo waa in laysku sheegaa ama ha laysku ogolaado ama ha laysku diido taasaa la doonayaa islaamku ma ogola waxyaalahan mudaahanada ah oo laysu hosgelinaya dadka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala midda kale rasuulka xadiis saxiixa waatuu ku yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi axadkiin iimaan kaamila lagama helin ilaa walaalka islaama u jeclaanayo waxuu naftiisa u jeclay oo khayr ah adiguba ma jeclin in balaayo lagu qariyo qofkaan balaayaha u qarinin adiguba in lagu qariyo aadan rabi lahayn oo rabbi ka baq subxaana wa tacaala marka arrimahaas in laga fekero ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo mamnuuca inan haddii uu nin doono in lagula tartamo munaafasatu fi lkhidba waa mamnuuc allah wuxuu qur-aanka ku yidhi walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin war ha xadgudbinina dadka xadgudba alla ma jecla inan muslimada haddaad ogaato walaalka islaama inuu doonay oo dariiq sharciya ku doona inaad ku feeri doontaa kuma banaana faasiq mujrima hadduu yahay waad ku reed ordi kartaa saasaa lagaa doonayaa laakiin waa nin muslim ah gabar muslimada ayuu doono kuma banaan inaad ku feer orado sharciyan markuu ku doonayo
مذكر الله وعويل سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ورق مؤمنين تا أي دمر كمؤمنات كقوة دبية وحي كسبدين أيضا الأركين وحي حنبار صدين بين أبو رسول الدم بحق وبلا يكون علي أي حنبار صدين يان لا يسدبين قفوا دوني يان لا ودرين اللهم هدي مشاورة لقوة يديوين العضيسة يان الله ترتمي خدبلا رسولك وحو حديث صحيح كوير أو صحيحين كبريا لا يخدم الرجل على خدمة أخيه حتى ينكح يعني من كين دوني ولا الكين قبر أو دون إلى أو كجور سنة هذا جور سنة هذا إلى دون تقوم بنانا وين معنا أو بيترك أما أو كتجي مركو كتجا ودوني كرتا أو أي دي بأيدي أما سجين عن لكن فكرة رامي ربي على ربه سبحانه وتعالى وحق السيدة الله إلى عليه ويان ترتن لبوس سمين الموضوع هذا الأكتها ويان هذا الأكتها ويان حب الدائمة يجور ناجحة أيادرة تعايل دائمة وأي سعري لولا غفوت محبة دائمة يجور كناجحي الله سبحانه وتعالى وهو قرآن ككيري ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى وحو شيغي ددكي مسلمين تا inay naftooda ka doorayeen dhibaha ku sugnaadeen qofka naftiisa bakhilnimadiisa laga dhowrana waa dadka liibaanay oo wanaagga gaaray marka xubbiga daa'imka xubbiga islaamiga weeyaan marka macnuu waa maxay muslimiintu waa isu doori jireen ninka iyo gabadha muslimiinta oo wanaagga ku wada noolba qofka kale wax u dooraa waxa asagu xaq u lahayd oo u siideeya xubbi daa'ima ka dhaxeeyo waana muslimiin guur xalaalna waa ka dhaxeeya nafteeda qofka kale uga bakhilaya wanaagana kuma jiro xubbiga daa'imka iyo guurka naajixa waa ka رسولك صلى الله عليه وسلم حوير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير سيادة من الخير وحصوص علي يعني نسائي كالإلى ترمذي الرجاشة وحان الله علماء سيؤبدين إمام أحمد بالنسبة أحكين مروا من إيمان كاملة إلى أوقفك ولكن سوناك أجعلاني وأو نفسي سأجعل وناك مركا لبرو غفاضة ولا النار خيرك وإني سجعلانا سوادك الناجحة أو وناجعة وإن الأجاتا إن أو كحرية لبرو غفاضة إني الدين اسكو راعين قف والبانا قفك كلا أو حياتي سوكلا كعبريو تاسال الدونية وإن هذا وحمرجية كحنباري وإن كإلى لسدباتنا وإن الأجاتا قفك ورالك أو جورك كل ولاجي وحلو الحق ولا ذي هدات كسامة والأدل قالت دباتيسة وأربك كبغت وأتكسرت وهي حقي سكاجي ماذا وناجنا هذا لجع لات إلهي الدنيا آخر إنه كدرجين حياتي النسوجيات سيقدائم نغطه وإنها كد الأشياء إنها دواناك اسكو إيكتان قرادار هدو تيران عاد اسودو الغالتان أود استسامحدان أود وحو ونايسان اسودو الغالتان تاس أيها الدوانية أرنكا هدو سندعي وناك لما قاريو وإني نيك يهوينتو شعور سيهين حياتنا أي ولاغان إني تاي حياة آد وهاقايسان والله سبحانه وتعالى ربيه سيرحمة ديسا لغو قاريو قف والبانا قفك كلا إنه واجب كيسا أقوته وحي كدما نادانا اللي تسامحه ليسكولا إيغو حبي إيو وناك إيو ورالمو إيو خيرات إيو اللي دونيا أرنكا سوال لغا مارمان ربي هلغا بغو وحق سيداها الله إلالي ودين تدد سيدا أبوسو على هلا نغضو وحكا لغا ولا هلا زواجك دحمرة يعني ددك يرير إيو ددك واوين الله سبحانه وتعالى قرآنك وحو كير ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وحا ضمرك أسغا وحا أيوغا الدشوة اللقولي أو وناغا وحلا مدأة سيدا أيوغا إلي وحو وناجيان وحو الدعان لقدونيو أيها لقدونيا ضدك مسلمين تا نمانك أهنا إلي ضمرك وناجيان مركا أرنكا سوحو كينيا إن أنت سكة سوا إلا قنعيو سوادكنا وإلو النقضي سواد مثالي oo ninka iyo haweentu ayagu ay isdoortaan haday kala da'weeyeen hadii kala oysan isku ganacsaneen aan la isku darin taas la doonaya oo marka labada qofood shakhsiyadooda farqi u dhaxeeyo aad u kabiir ah ayaguna aysan sida isku dooranin jawaanib badan dhibaato ayaa ka imaanaysa ee rabbi laga bogo subhanahu wa ta'ala wayo nolosha dhibaato badan ayaa ka soo gaaraysa la darar wala dirar sharciguna ma ogola darar iyo dirar الله laga bogo hadii inantaada uu ka soo doono nin da'way oo aatira aan ku siiyo maanay
وأي ترى آب وان ربا إسي أنا نك وين دونية ورالكوا فلله الحمد سي وإله هدي لكن هدي ترى أنا نك كان مدونية أمو يقوي أما الله من نوران كرو إن أتكون حديد أو أتكبد بديسين أو أي مركز دمه رواي كاغية خير ملها وأنا دعوة عجيبة من أياب بوغضي أضيئة أو آد أقبوبي غير أي صاحب بأهايان مركز ننكو وحو هايبها اللي يرددك اللي حدامات كبودي مركز بوغضي وحو كواركي غيركي إنان آد أقروح بضان إنانتي مركز كواركي ووضى البضي ninka inanta dhalay iyo odaguna saaxiib weeye inantii in lagu daro ayay ka wada hadleen odagii iyo inantii iyo habartii gabadh inanta dhalay inantiisay habartu ula murmaysay markii dambe mawduucii ogolaatay inantii ninkii waa lagu daray waa nin uruskanaya waa nin sitimaad gaaray guri ayuu geysay guriga jalbeebkiisa ayagoo jooga maalintii dambe bay wiilal dhallinyaraa oo 20 jira agteeda ku tartameen markaas ayay oyday maxaad la ooyeysa ayay ku yiri yani shalaygayga shabaab ii sugnaadeena sida u tartamaya ayay tiri sida markay tiri ayuu yiri haraag baa kuu sugnaaday dalqadaha ayaa qabtay oo reerkaagii qabo waayo inaysan nolol wadaagin baa meesha ka muuqatay marka inantaadi hadday mawduuca kaaga hor timaado qasab ha uga dhigin inaad ninka da'da weyn ku dartid hadday iyadu doonaysa falaaka falilah alxamdu oo yaan guurka lagu cayaarin oo dadka waxaa la doonayaa inay munaasib isu yihiin laysku darayo وإن جورك لقى فيرسده والله جرى ما أهن معناه لبلا قفض وإن أيجو إسكوكان عن أو إسيالان مركي قفك كلا أشيكي أو أي ورك على هلان أو إسدجيسان أي قفكم إلى نعم أنا الدنيا بس خلاص هأودي لنا إن أنتو من أي دولة سيئة لو ديدي مركي أو نكون خير ليها مركي اللي جورسنا يوقع على شردية جورك ولي oo inanta in aabaheed bixiyo ama qof ka mas'uul ayaa la doonaya Allah subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu ku sheegay wa antu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim dadka mas'uuliyiinta ayaa la hadlaya rasuulkuna hadith sahih wa tawqir la nikaha illa bi wali wa shahiday adl حديث كرواته كل أي امرأة نكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل سدح جربه كعلي أدلة صحيحة أوفر بدن أيها قصة أرورتي موضوع عاصنا إن بدن أيها كلي كهذا وهذا إنها نكور النوديات ومنهم لكن وحن تلمامينا إنها نقول سورة قل أهين هدي أن ولدي إن أنت أوصل إن أنت بهم ربي على قبض سبحانه وتعالى إسلام كرائك أو كغل حبك iyo waxyaalaha lagu magacaabo ninka iyo haweentu inay isticmaalaan xubbiga islaamku wuu ogol yahay wuuna jiraa haddausan ahayn xubbu shahwada caarimada oo beenbeenta ah ee uu yahay mid dariiq wanaagsan ku yimid cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi rajul baa rasuulka wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi fii xijri yatiima qad khadabahaa rajulun muusir wa rajulun mucdin rasuulkii allow gurgayga waxaa jooga gabar agoon ah oo anigu aan soo koriyo mas'uul ka ahay waxa soo doonay laba nin aan waxba isku furan iyo nin asagu xoolo leh anagu waxaan jecelnahay ninka muusirka oo xoolaha leh wahiya tuhibbu al-mu'din ayaduna waxay rabtaa ninka aan waxba haysanin bal ka waran buu yiri ayadii waxay doonaysaa ninka aan waxba xoolo lahayn anaguna ninka dhaqaalaha lahaan la doonayna laba nin oo noocaas ayaana inantii u timid marka maxaan samaynaa رسولك وهو جوابي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح صلى الله عليه وسلم كوا اسجعل وح نكاح ألمده مجرا معناها حبك ذاتك أو كدحيو أيوه مركا حبك كدحيو أيها نكاح ونكسيه نكاح أنا سيدي سدا وهو كفي عني إلا وضع قفوت إلي اسكوكا أحسن تاي حبك لك الله يا حب الشهوة العارمة هي رغبة بينا معها هي حبك بينتا أو سولية وأسبوا خيالك وحويان حبها جاكسان أو ضدك أي وناك أيوه اسكدونيان مركا وحويري حبك أسجع لبضا غفاط أو كدحي إلا يسي أيها وناكسان إن أنتم معناها من أيسان كهلين ويسان أيضا الربين هكدري من أويه هذا منكم الدين يا أخلاق ليه حديث كابن ماجه حاكم بيهقي الضبراني بأصوص علي علماء وحي لين دروق بوليه مجموع أو حسن كنا قناي حديثكم
runahaan dumarkii saalixaadka ahaa iyo dadkii fiicnaay waxay ku kadsoomeen in badan oo ka mida inay haleeleen dad aan khayr lahayn ayagoo qurux iyo waxyaalo aan loo baahnayn ku jeclaada dadka in layska ilaaliyaa la doonayaa aad iyo aadna ha looga fiirsado labada qofood oo laysi siinayo ha isku qanceen hadday laba qofood oo kala da-weyn yihiin oo isku qancaan waa laysi siinayaa hadday laba qofood oo yihiin oo aan ninku xoolo lahayn oo gabadhu ku ganacdo waa la siinayaa diin iyo akhlaaqba hadday meesha jirto taas ayaa la doonayaa haddii aan taasu jirin khatar weeyaan marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala midda kale xubbigu waa sacab waa shay culus oo dhib badan xubbigu waa shay sacab ah wuxuuna ku yimaadaa fiiro israacraacsan iyo waxyaalo aan loo baahnayn oo islaamku diiday ayaa asalka u sababa horta xubbiga xadgudubka ah amaa ragbada iyo doonidda laba qofoodan ragbe iyo wanaag isu hayn ma isguursan karaan laakiin xubbiga la yidhaahdo wadnaha idilaaco laba miir beelo waxyaalo aan sharcigu ousan ogolaan buu ku yimaadaa hadduu yimaado qofkii in laga xalliyaa la doonayaa laakiin xubbi ayaa jira ku yimaada si sharci ah labada qofood markay isguursata ka gadaal kii yimaado mushkula kuma sugna laakiin midka sala joogga laysaga dhacayo oo in labada qofood oon isguursan ku yimaada culammada waxay leeyihiin waxuu ku bilowda waxaan diinta ogoleen qofka ka fakeray in badan laakiin qofku inuu qofka ka fakero ee uu ragbo iyo wanaag iyo nolosha allow yahay qofkaan la wadaago u isleeyahay mushkula kuma sugna laakiin inaad ku waalataa la diidaya ee uu ku gaarsiiyo walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bih aayaddaas alla laga barya inuusan nagu xambaarin waxaana daaqa o lahayn jacaylka gabalna waa waxaan daaqa loo lahayn waa wax dhib badan insaanku daciif weeye mashaakil weeye waa kuwii haweenkii markay arkeen nabi yuusuf gacmaha iska googooyey rasuulka sala allahu calayh wasalam markii lagu yidhi dadka yaa ugu jeceshay caaishaan ugu jecela u yidhi raggaan kaala hadlaynaa baa la yidhi aabbaheedaan ugu jecela u yidhi bukhaariyo muslim baa qoray haweenka nabiga ayaa faadima u diray faadima bintu nebi sala allahu alay wasalam rasuulka ayay u direen sala allahu calayh wasalam oo yidhahdeen rasuulka nagala hadal caaisha naga jecel yahay markay caaisha u tagtay rasuulka waxay ku tihi yaa rasuula allah ina aswaajaka yas'alnaka alcadla fii ibnati abi quxaafa haweenkooda waxay ku su-aalanayaan gabadha oo abi quxaafa dhalay inaan cadaalo ula samaynin maxaa yeele waad ka jeceshahay wayna kaa sheegteen caaishana way iska aamusan tahay rasuulku waxau yihi alasta tuxubbiina maa axib sow ma tihin mid jeclaanaysa waxaan anigu jecelahay waxay ku tihi bala iskaba dhaaf inaanan jeclaana waan jeclaan rasuulku waxau ku yidhi faaxibbii haadihi tan caaishaa anaa jecele adigu jeclaaw saas ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam oo in la kala xataa ninku dumarkiisi kala jeclaanaya daliil u tahay waayo muxabada qalbiga lama hana karo xadiidka muslim iyo nasaa-i baa soo saaray ninka muqiis la yidhaaha waxaa la wariyey sawjadiisa bariiro ahayd markau faaruqay ilaa ayada waa la xulay asna addoon buu ahaay ayadoo ka ajnabiye ah inuu daba ooyi jiray wa dumuucuhu tasiilu calaa khadday ilintiisuna ay labada dhafoor ku dureersanaysay rasuulku wuxuu ku yidhi cabbaas war cabbaasow alaa tacjibu min xubbi muqiis bariira sow lama yaafi sida ninka la yidhaahdo muqiis ou bariiro u jecel yahay iyo bugdi bariira muqiis siday ay bariira muqiis u necab tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam bariirow la hadla naa bariiray ku laabo ma igu waajibaa inaan ku laabtay ku tiri maya uu rasuulku yidhi waan shafeecaya ergaan ahay laa xaajata lii fiihi bay tiri inaan ku laabto dan kamaliyo mana doonayo mana aan rabo markaasuu daba socdaa oo ilinu ka da-aysaa oo dhafooradiisii qoyeen marka xubbigu waa shay daran oo dhib badan oo mashaakil ah oo alle laga magan galo marxaladaas inuu qofka gaarsiiyo xadiidka macnaha tusiye bukhaari baa qoray wax cajiiba weeye marka allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala oo xagga ha la ilaaliyo oo balyaan xadgudub la samaynin oo bal ha laga fiirsado xubbiga waxyaalaha uu la imaanayo oo xadgudubka ah dadka ayagoo xubbigu ku dhacay in loo naxariisto oo loo shafeecaa la doonayaa oo laysugu kaalmeeyo biriga iyo samafalka laakiin dembi iyo cololaysan aan laysugu kaalmayn waayo rasuulka waxau yidhi bariire ku yidhi ku laaba ninka ka dhibaatadu haysato rasuulku waa kala hadlay waana ay diiday marka aad iyo aad baad u arkaysaa in la doonayo dadka xubbiga hayo in loo shafeeco xubbigooda hadduu yahay mid ku socda khayr waayo cishqigu caqliga ninka iyo darteed muslimiintu ha is ilaaliyeen
maxabbada ka dhaxaysa ha noqoto kuwa isqaba maxabba wanaagsan oo ilaahay dartiisu jecel yihiin labada qofoodna ilaahay diintiisa inay isku jeclaadaan waa la ogolyahay islaamka ah laakiin waxaan jacaylka la leeyahay oo xagga shahwada la xiriira dhibaato badan ayay keenaan xuduuddii loogu talagalay markay dhaafaan qofka arrintaasu ku timaadana waxaa la doonayaa bal in wax loo qabto khilaafadii abubakrin sidiiq ayay soo mareen abubakar iyo dad kale inan wax raashin tumaysa oo hadallo jacayl ah ku dhawaaqaysa inantii markii arrinteeda la waraysana inay nin jeceshay ayaa la sheegay ninkiina markaas ayaa loola hadlay xubbigu waa wax aad u dhib badan cawaamil badan baana dadka ku xambaarta oo ku sii badisa cusmaan binu cafaan sidaas oo kale inan ayaduna nin jeclaatay arrinkeeda ayuu wax ka qabtay dad fara badan oo muslimiinta ka mid ah waxay u ergeeyeen waxna la qabteen dad cishqi iyo jacayl wax la yidhaah laga helay oo aad iyo aad mawduucaas oo u indhayo dhegatiray markii qofka uu raqbo u leeyahay ee uu doonayo waa inuu dalab hagaagsan ku dalbado waana inuusan aad iyo aad isugu sii mashquulin waayo qofka kanu waa bani aadam in uu wax aqbali doono iyo wax ka imaan doonana war lagama hayo marka bal allaha laga bogo oo mawduucaas si degan ha looga baaraan dego labada isqabtana maxabbo iyo jacayl iyo raxmad iyo wanaag ha ku wada noolaadeen col iyo nabad ma ahana ha ka tanasuleen waa in guurka la fududeeyaa maxaa yeelay guurka fududayntiisa ayay barakadu ku jirtaa waxaana waajib ah inanta marka nin la siinayo in ayada laga idan dalbo waa mawduuc aan horay u daraasaynay inanta in laysaga daro nin aysan ayadu doonayn ma bannaana waa in laga idan dalbo oo la yidhaah ninka ma lagu siiyaa hadday ku qanacda ayaa la siinayaa khansa bintu jadaam waxay tidhi aabbaheed inuu ku qasbay ayay sheegtay nin uu ku daray ayadoon oggolayn rasuulka ayay u tagtay sala allahu calayh wasalam faradda nikaaxaha rasuulku nikaaxeedii waa radiyey waa in la joojiyaa buu yidhi xadiidkaasna jamaacada ayaa soo saartay ummahaadka qortay ilaa muslim ahane inan kale ayaa rasuulka u timid waxay tidhi aabbahay ina adeerka wiil ou adeer u yahay ayuu igu daray oo aan fiicnayn mana aan doonayo rasuulku wuxuu yidhi ikhtiyaar baad leedahay markaas waxay tidhi aabbahay warkiisa waa fulin laakiin waxaan doonayay dumarka inaan ogeysiiyo an laysa lilaabaa'i min alamri shay inaysan aabbayaalku qasab aysan gabdhaha arrinkooda ku lahayn waa xadiid saxiixa marka waxaa la doonayaa inantu nin aysan ayadu ku qancin inaadan ku darin islaamku wuxuu inanta siiyey xurriyadda xaqa ay u leedahay inay nimanka kala doorato oo ninkay doorato diinla la siiyo ninkaysan ayadu dooranna laga deeyo oy tiraa anigu ma doonayo laakiin waxaa la doonayaa inantu ninkay dooranaysa inay diin ku doorato inan baa waxay dooratay ninkuna nin aan wanaagsanayn ayuu ahaa aabbaheed waa kala teliyey ilaaba igu darbo ay ku tiri waa ku dara aabbaheed ninku waxa way nimaan akhlaaq lahayn aabbihii maalintii dambe u booqday isagoo ninkii inantii dilay oo dhibaato badan iyo borobaleen badan ku haya aabbow maanta waxaan kuu sheega karaa ma jiraan bay tiri waayo waan kaa tala diiday waxaa la doonayaa in aan qofka inantu isaga yeelin ninku waa oo nin inuu ninku nin islaama noqdaa la doonayaa midda kale waxaa mamnuuca waalidka haddii gabar laga soo doono nin diin iyo akhlaaq leh oo ka soo doona inay meermeeriyaan oy diidaan waa arrin mamnuuca oon la oggolayn sida adiladu caddaynayso oon mawduuca hore u daraasaynay arrinta kale waxa weeye ninka muslimkaa waxaa u bannaan inuu inantiisa nimanka muslimiinta oo hagaagsan ou yidhaahdo aan idinku daro hadday ayadu ku qanacdo markaasna ou ku daro sida aayadaha qur-aan caddaynayaan oo muuse ou shucayb gabdhihiisii ugu soo bandhigay ilaa shucayb baa yidhi inan baan kugu darayaa cumar binu khadaab inantiisa xabso ah markii ninkeedii ka dhintay waatou abaabakar iyo cusmaan ninba uu mar yidhi aan idinku daro markii dambe rasuulkaa guursaday sida bukhaari iyo ku sugan nasaa-i oo xadiid saxiixa oo dheer u caddaynayo marka arrin bannaan oo la ogol yahay weeye dariiqaas in la maro ayaana la doonayaa laakiin la dooni maayo in arrinta lagu cayaaro munaasabo ayaa jirta mawduuca asaga ah
cabdullaahi ibnu abi wadaaca wuxuu yidhi waxaan la fadhiisan jiray saciid ibnu lmusayab maalmo ayuu i waayey maalintii dambe ayaan la kulmo wuxuu igu yidhi xaggeed aaday waxaan idhi buu yidhi haweentaydii ayaa dhimatay marka arrinteedaan mashquul ku ahaa maxaad noogu soo sheegi weydou yidhi aan kaala soo qaybgalna ah oo arrinkaaga aan eegna ah markii aan doonay inaan istaaga buu yidhi cabdullaahi oo aan kala tegi rabno ayuu igu yidhi gabar ma guursatay waxaan idhi buu yidhi allaha kuu naxariise yaa ii guurinaya 2 dirham ama 3 dirham waxaan ahayn xoolo waxaan ahayn ma haystee saciid wuxuu yidhi anaa kuu guurinaya saciidna haddee inan asagu ou dhalay ou isku hubo oo tiri aabba ninkaad ii galato waad igu deli kartaa ayaa u joogtay wuxuu yidhi waa yahay waan samaynayaa saciid ninka la yidhaha xamdigiiba u akhriyey nabiga u ku salliyey sala allahu calayh wasalam yacni wixii loo baahnaa isla booskiiba u kula sawjeeyey markhaati inta loo yeelay 2 dirham ama 3 dirham baa mahar looga dhigay cabdullaahi wuxuu yidhi waan iska tegey farax aawadii anoo aad u faraxsan gurgaygii ayaan tegey anoo faraxsan waan fakeray waxaan idhi buu yidhi talow maxaad samaysaa maantii dambe ayaan gurgayga anoo sooman tegey wuxuu yidhi waan casheeyey cashadaydii ayaan ku afuray waxaan ku afurou yidhi muufe iyo saliid albaabka ayaa la ii soo garaacay anoo is odhanaya seed wax yeeshaa markaasaa idhi buu yidhi waa qof ma wuxuu yidhi waa saciid saciidku qofka uu yahaan ku fakera buu yidhi saciid kale inuusan jirin ilaa saciid binu musayab mooye ayaa igu soo dhacday wuxuu yidhi markaa waxaan isiri buu yidhi waa see xaaladdu gurgaygana muddo badan ma uusan imaanin waxaan u maleeye buu yidhi ra'yigiisii inuu isbeddelay oo uu dhihi doono inantayda ii sii day iyo kida iyo waxyaalo kale markaas ayuu inta yacni ii yimid ayaan idhi buu yidhi anaa ku imaan lahaaye maxaad iigu soo cidiri weyday wuxuu igu yidhi buu yidhi adaa u xaqle in laguu yimaado rajul baa tahay doob ah oon gabar u guuriyey waxaan kaaday keligaa inaad gurgaaga ku baridid tanu waa haweentaadii oo gadeelkayga taagan ee hoo inantii waa tane albaabka ayuu ii soo geliyey qolkaygii inantii oo keligeed ah asaguna waa iska laabta buu yidhi wuxuu yidhi ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu wadaaca hiya min ajmali nnisaa dumarka kuwa ugu qurxoon ayay ka mid noqotay xagga dabeecadda iyo wanaagga wa axfadi innaasi likitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay kuwa ugu xifdin badan bay ka mid ahayd wa aclamhum lisunnati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sunnada nabigana ugu ogo-og oo haddana ugu garoog dadka bixaqi zawj waxay ahaata buu yidhi saciid ibnu lmusayab inantiisa inan saciid waa u laa'iq markaa ka horna waxaa ka soo doonay cabdulmelik ibnu marwaan wiil ou asagu dhala waa la yidhi ama asaga waa uu diiday saciid inuu ku daro ninkaa faqiirka oon xoolaha haysanin oo sawjadii ka dhimatana waa uu ku daray maxaa yeele waa nin iimaan iyo diin leh oo ilaahay ka cabsanaya waxaana meesha la shardinayay akhlaaq iyo diin islaami inuu qofku leeyahay noocaas baa loo baahan yahay bal sahlanaanta iyo basaadada iyo curuuska iyo nikaaxa habkay u dhaceen u fiiriso waa inan ou saciid dhalay waa inantay inanta la mid ah ninka loo guurinaya waa cabdullahi ibni wadaaca waa ninkay ninka la mid ah maantana brobaleemka iyo mashaakilka lasoo maraya waad aragteen rabbi ha laga cabsado xagga ha la ilaaliyo waxaa kaloo laysu diiday in maharka la qaaliyeeyo oo qaaliga laga badiyo diimada laysu diiday nahyi qaadica oo la yidhi waa xaaraan ma jiro laakiin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna min yumni lmar'ati taysuuru khidbatiha wa taysuuru sadaaqiha wa taysiiru raximaha inanta waxaa ka mida barakadeeda doonideedu inay sahlan tahay maharkeedu inuu sahlan yahay dadka ayadaa riximkeeda inay sahlan yihiin oo xariirkeeda iyo wanaaggeedu fiican yahay aad iyo aad baa loogu baahanyay inanta in doonideeda dadka loo sahloon lagu dhibin oo aad marka lagaa doono aadan qofka waxaan diin iyo akhlaaqayn ku xirin maharkeeda in la fududayana waa loo baahan yahay waa xadiid axmed iyo nasaa-i sanad wanaagsan ku qorayaan inantii nabiga u timid oo tiri nafteyda waan ku hibeeyey ninkau ku dara nabiguna waxau kula daray wax yar rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkou guursaday waxaa mahar u ahaan jiray iyo gabdhihiisa 12 uqiyadood iyo nashigu waa nisfu uqiya waa 500 oo dirham cali ninka la yidhaha markuu nabigu faadima ku sawjeeyey waxau yidhi aawa dircigaagii khudamiga ahaa kaasaa mahar looga dhigay iyo wax la mid ah
marka maharka in la sahlaa loo baahanyay oo aan la qaaliyey axaadiis odhanaysa iyo aayado waa xaaraan ma jirto laakiin waxaa adilada laga garanayaa in laga habooyay in la badiyana aan loo baahnayn umu sulaym maharkeeda waxay ka dhigtay islaamnimada abidalxe cumar binu khadaab maharka yaan la qaaliyeyn buu yidhi hadduu karaamo iyo taqwo ahaan lahay nabigaa badin lahaa dumarka gabarh ka mida ayaa ku qabsatay sidaas ayaa la sheegay qisadaas ayada ah in badan markaan baarnay waxaan ogaanay inay muslimiintu leeyihiin ducfi baa ku sugan oo sanadkeeda ayaa inqidaac iyo wax ku jiraan marka masalada ayada ah suuragal weeye inay sugan tahay inkastoo ay culammada gaba ducfi ku tuhmayaan laakiin haddana macnaheeda loolama jeedo maharka in la qaaliyeeya waa iska laazim ma aha maharka in la qaaliyeeya way bannaan tahay laakiin waa laga wanaagsan yahay waayo barakada iyo khayrka inantu waxau ku jiraa mahar fudud ba uu leeyahay rasuulku sala allahu calayh wasalam rasuulka sala allahu calayh wasalam faadimo isagaa u diyaariyey barkin iyo yacni go ay hugdaan ayada iyo cali isagaa u diyaariyey jaabir wuxuu yidhi curuuska faadimaan ka qayb galnay curuuskan ugu wanaagsan buu ahaa firaaskooduna wuxuu ahaay yacni baalka lagu sameeyey joodariga qumbaha lagu sameeyey tibir iyo zabiib baana lagu cunay oo kali ah bal u fiirso waxaa loo goglay oo lagu fadhiisanayo waxay ahaayeen maqaar la madgeeyey ayaa lagu fadhiistay bal basaadada iyo sahlanaanta u fiirso taariikhda ay soo mareen gabdhihii khayr ka badnaa guurkoodii rasuulkii alle inantiisii iyo cali oo isguursanaya dadkii khayrka lahay guurkoodu saasou ahaa boqorradii iyo dadkii sadaadiinta ay guurkoodana iyo gabdhahooda marka la guursanayana dahab iyo xariir baa la gogli jiray tafaakur iyo dulli iyo qurun ayaa lala imaan jiray milyuun dirham ayaa lagu bixin jiray iyo wax aan sharcigu oggolayn marka rabbigiin ka cabsada oo guurka basaadadiisa hagaajiya guurku waa mid mashruuca waa mid naloo oggolaaday oo nala ka dalbay in lala yimaado waa mid in loo tartamo u baahan laakiin ha laga deeyo qaaliyeynta markaan ka sheekaynayna aadaabu zifaaf ayaan ka warrannay dadka muslimiintaa ha raadsadeen sharaa'idka zifaafka ka hadlaya oo kale oo ha ka raadsadeen carabta meelo ka mida afrika iyo yurub intaba marka rabbi ha laga bogo oo sharcigu sidou yahay guurka ha laga dhigo ragga iyo dumarka maanta jira ee shabaabka ah waxyaalahay isku guursalayihiin waxaa ka mida miisaaniyadda culayska loo yeelay maharka in la oofiyo oo inanta la siiyo in lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay inanta marka la guursanayo in la yidhaah alaabta gurga qaarkeed bixi qasab bay kugu tahay looma baahna in dahab iyo fido meesha la keenana looma baahna shuruudda ayada ay ninka u la galana in loo oofiyaa la doonayaa oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam axaqu shuruudi an tuwafuu bih ma istaxlaltum bihi min alfuruud shuruudda waxaa ugu xaqnimo badan inaad oofidaan waxaad farjiyaalka haweenta ku xalilateen bukhaariga muslim baa qoraya shardigaad inanta la gashay ka soo bax nin walbow rabbi ha laga boqo nin alla ninkii gabarh guursada oo mahar ku guursada ama ha badnaado ama ha yaraado naftiisana aysan ku jirin inuu maharkii u gudo waa khadaaceeyey hadduu sidaa ku dhinto isagoon u gudinna laqiya allaha yowma alqiyaamati wahuwa zaani xadiid baa ku soo aroora sidaa sanadkiisu habboon yahay alla ayuu maalinta qiyaamada la kulmaya isagoo zaani ah maharka inuu gudo ma rabo sida ragga yidhaah oo kale shiid igula xir ha iga xugaysee kollay iga qaadi maydee marka rabbi ka cabsada oo guurka yaan lagu cayaarin oo maharka dumarka ha loo gudo maharkana yaan qaasha gabdhuhu ka badinin oo dumarka u maharka ka qaalinimadiisa iyo lacagta kumanaankaa ood sheeganaysaan ku janno geli maydaan darajana idin kordhin maydeen rabbi ka cabsadoo iska deeyoo diinta ilaaliyo xagga kaliya ku socda oo dad xaaraanta qaataha noqonina oo diinta islaamka ku cayaara diinta islaamku say tahay u shaqeeya aad liibaanteena maharkaa faraha badanna faraha ka qaada khid baa la doonayaa iyo duco marka caqadka la samaynayo hortiisa xamdi iyo ammaan allah lagu bilaabin iyo in rasuulka lagu saliyo sala allahu calayh wasalam khudbo waxaa ugu fadli badan in la akriyo khudbada aan ku soo bilownay muxaadarada markaan bilaabaynay oo khudbatulxaaja la yidhaah khudbo walba oo aan tashahud ku jirinna gacan engegan ayay la mid tahay
marka khudbatulxaaja in lala yimaado ayaa loo baahan yahay. rabbi ha laga bogo, khudbadana ha lala yimaado, xaqana ha la ilaaliyo, guurkana si hagaagsan ha loo rido, maharka ha la xadido, maharkana yaan la qaaliyaynin. inanta iyo inanka isguursanaya guurka inta uusan dhicin ka hor in dardaaranno la sameeyo, bal dardaaranka aabba iyo hooyo ay inanta u dardaarmeen dhegayso. waxaa la sunneeyaa in inanta loo dardaarmo, inankana sidaas oo kale in loo dardaarmaa la doonin. asxaabu rasuulillah waxay ahaan jireen markay gabadh ay aroosinayaan waxay amri jireen ninkeeda inay u khidmayso, xaqiisa inay ilaaliso, inay addeecdo, inay ninka wanaajido. aabba oo u dardaarmaya inantiisa marka la guurinayo dhegayso. cabdullaahi ibnu jacfar ibnu abi daalib ayaa inantiisa u dardaarmo waxau ku yidhi iyaaki waalgiira fa innahaa miftaaxu dalaaq. adiga iyo naf iyo shaydaan iyo waxaan idiin kala digayaa masayr badan aad ninka ku hinaasootood ku qayliso, maxaa yeelay waa miftaaxa furaha kiiradu ee iska ilaali inantayda ayuu ku yidhi. waxau kaloo ku yidhi iyaaki wa kasrati alcasab fa innahu yurisu lbaqdaa. waxaan kaaga digayaa naf iyo shaydaan iyo inaad ninka mar kasta la dagaalanto ood canaanato ood dhibto, cadho ayay dhaxal siinaysaa iyo inuu mar walba ku caraysan yahay. waxau ku yidhi calayka bilkuxli indhakuusha laazim fa innahu asyanu ziina. ziine ayadaa ugu wanaag badane, indhakuusha laazim ayadaa ziine ugu wanaagsan ee indhakuulo. wa adyabu diibi almaa. diib waxaa ugu wanaagsanna waa biyee mayro, oo weligaa waa inaad isnadiifidaa, isqurxidaa. aabba inantiisii la dardaarmayaa sidaa ayuu ku yidhi. ninka camar ibnu kinda la yidhaah ayaa waxau doonay umu iyaas binta cawf inanta la yidhaah. markii loo gurir keeni rabay ayaa hooyadeed la hadashay. waxay ku tidhi inantayday jawigii aad ku jiri jirtay waad faaruqday, waxaad gashay daas iyo meel aadan garanayn. inanna hadday nin ka deeqtoonaato, hadday nin iska day karto, aabbaheed iyo hooyadeed bay la noolaan lahayd. xaajo ay u qabtay aawadeed ayay inantu ninka ula nooshahay. haweenka waxaa loo khalqay waa nimanka, nimankana waxaa loo khalqay waa haweenka. waa laba qolo isdoonaysoon kala maarmin. inantayday jawi ayaad gashay, waxaadna la kulmi doontaa qariib iyo saaxiib aadan horay u garanayn. agtiisa addoon ku noqo, addoon u ahaaw, addoon ayuu kuu noqonayaahe. agtiisa waxaad ku ahaataa dhul xir ku hareeya oo ku dhowra oo ku ilaaliya ayuu kuu noqonayaahe. waxau ku tidhi inantayday 10 arrimood ilaali. waa hooyo inanteed la dardaarmaysa. kayd bay kuu noqonaysaa, gurgaagu waa hagaagsanaanayaa. midda koowaad iyo midda labaad waxa weeye falkhuduucu lahu bilqanaaca wa xusnu samci lahu wadaaca. waa inaad u khuduucdaa ood ku qanaaco qaadataa wixii ou ku siiya ninkaagu. waa inaad si wanaagsan u maqashaa warkiisa, waa inaad addeecdaa. maanday qanaaca la imaad oo ku qanaaco qaado oo ku raalli noqo waxuu ku siiyo. si wanaagsan u maqal oo addeec ninkaaga ayay tiri hooyadii. athaalisa waaraabica, arrinta saddexaad iyo midda afaraad waxa weeye fatafaqudu limawdici caynihi wa anfih. waxaad eegtaa indhihiisa meelahooda iyo sankiisa. sankiisa iyo indhihiisa ilaali bay tiri. maxaa loola jeedaa? falaa taqac caynuhu minka calaa qabiix. ishiisu yaysan adiga kugu arkin wax xun oo xaragada iyo quruxda ku dadaal. walaa yashumu minka ilaa adyabu riix. caraf midda ugu uleyga badan maane wax kale yowsan kaa carfinin. jirkaaga nadiifi, bididka yowsan kaa soo urin. maandhaysanka ninkaaga iyo indhihiisa ilaali bay tidhi, oo yowsan xumaan kugu arkin, yowsanna kaa urinin waxyaala qurmaya ee isnadiifi. ama alkhaamisa wasaadisa, midda shanaad iyo midda lixaad waxa weeye fatafaqudu liwaqti manaamihi wa dacaamih. waxaad koontarooshaa ood ilaalisaa waqtiga ou hurdaya iyo cuntadiisa. maxaa dhaca bay tidhi tawaatululjiuc. qofka hadday baahidu ka badato dhibaato ayay ku samaysaa iyo dabeecad xumo. hurdadoo qofka looga nixiyaana way ka cadhaysiidaa. marka waxaad yeelaysaa hurdada ha ka nusaamin.
ninkana baahi ha ku eeganin wax cabsiida adoo gacanta ku hayo gurga waxyaaliin ee ninka hadba wax ku qabo wax ku eeg bay tiri waxay tiri arrinta toddobaad iyo midda sideedaad waxaad yeelaysaa falixtiraasu bimaalik maalkiisa ilaali sharaftiisa ilaali ciyaalkiisa ilaali amarka xoolihiisa hanoo tadbiirka u hagaaji ciyaalka wanaag ku tarabiyey oo gurgu guri wanaagsan oo xoolaha ilaalintooda iyo ilmaha korintooda aad u wanaajinid ha noqoto maanday arrinkaa ku dadaal bay tiri hooyadii inanteeda arrinta sagaalaad iyo arrinta tobnaad waxa weeye bay tiri falaa tacsiyanna lahu amra ninkaaga amar ha ku caasinin sirtiisa ha fidinin amarkiisa haddaad khilaafto inuu xumaan qalbiga kuugu qaado ha ka aamin noqonin sirtiisa haddaad fidiso inuu dhibaato kula soo qaabilo ha ka aamin noqonin ninkaagu markuu tiiraanyaysan yahay hortiisa ha ku farxin bay tiri marka uu faraxsan yahana tiiraanyo iyo ooyin hortiisa ha ku muujinin arrimahaas ayay hooyadii inanteeda kala hadashay waa 10 arrimood ee ay hooyadu inanteeda u dardaarantay marka hadalla waxay ku sii tiriyaa badan oo kale waxay tiri haddaba waxaa lagaa doonayaa inaad weligaa ku dadaashid inaad ninkaaga ka ilaalisid noogga iyo dhibaatada hadalka inta ka badiso ha cajis gelinin inta ka badido dhibaatada ha cajis gelinin iska ilaali qiilada iyo xumaatada waxaad ku dadaashaa wax kastoo furiinka ku gaarsii kara inaad ka durugtid waxaad ku dadaashaa ziinada waxaad ku dadaashaa diibka waxaad ku dadaashaa sharafta iyo wanaagga waxaad ilaalisaa ayaa lagu yidhi inanta indhaha sanka iyo dhagaha oo wada jira oo macnaha waxaa loola jeedaa hadal xun yaan lagaa maqlin yaan jirkaagu soo urin yaan indhuhu xumaato kugu arkin intaasoo dhan dhowr baa lagu yidhi inan yahay si noloshaada u hagaagto oo guurkaagu guur wanaagsan u noqdo marka hooyo walbee muslimad ah oo inanteeda guri geynaysa ama nin siinaysa inay sidaa ugu dardaarantaa la doonayaa say inantu u noqoto mid khayr badan oo gurgeeda wanaag ku dhaqda nin muslima oo gabadh uu soo guursada u dardaarmaya abudarda haweentiisii wuxuu ku yidhi idaa ra'aytunii kadabtu haddaad aragtay anoo carooday kadabtu faraddinii bi raalli garay markaan ku arko inaad carootay waan ku raalli garaynayaa wa ilaa lam nasxab buu yidhi haddaanna sidaa yeelin oo qofka iyo markuu caraysan yahay qofka kale uusan carada ka baabin una dul qaadan wuxuu yidhi ma dhici karto inaan wada noolaanno oon meel wada joogno amaan wanaag gaarno ee markaad caraysantahay waan ku raalli garayne markaan anigu caraysanay i raalli garay oo haygu qayyin sidaa yeel buu ku yidhi sidaa ayaa la doonayaa arrintu inay noqoto hooyo ayaa la dardaarantay casriyaalka maanta la joogay inanteeda ayadoon la gurigay waxay ku tiri inantayday waxaad qaabishay nolol jadiid ah waxaad qaabishay xayaato aan aabbaha iyo hooyada aysan makaan ku lahayn walaalaha qof ka mida uusan makaan ku lahayn waxaad noqotay mid nin la saaxiibtay waana lagaba maarmaan inaad ninka suxbadiisa hagaajidid waxay tidhi ninkaa sawjo u noqo maxaa yeelay sawjo haddaad u noqoto alla agtiisa wanaag baad ka gaari doontaa marka waxay ku tidhi inantayday ninkaa sawjo u noqo hooyo u noqo wanaag u samay ogow ayay tidhi wax walba oo noloshiisa ka mida inuu adiga agtaada la yimid ogow ay ku tidhi hooyadii inankee isgabadheeda iyadoo la hadlaysa rajulku inuu yahay difli weyn ninku waxay tidhi waa canug sagiir oo weyn kelimo yar oo macaan haddaad ku tidhaahdo wax walba waad ka samaysan kartaa hadal fiican iyo qosol iyo dhafoorkood u salaaxdo ku samay bay tidhi maxaa yeelay nimanku waa ciyaal waaweyn bay tidhi oo waxa lagu sasaboo loogu qoqoslay bay garanayaan waxay ku tidhi waa inaad ogaataa inan yahay ninkaagu inuu ka soo tegay aabbihii iyo hooyadii iyo ehelkiisii adow kaaga soo tegey adiguna reerkaagii baad ka tagtoo asagaad uga tagtood raacday noloshiisa hagaaji oo si wanaagsan ula noolaaw oo maandhay wanaag ku sugnaaw oo aabbaha iyo hooyadaa waad ka tagtay maantoo waad faaruqday ee mar kasta ninkaaga raalli garay waxay ku tidhi anigu kaama dalbin aabba iyo hooye inaad halmaantid maxaa yeelay ayagu kuma halmaami karaan ee waxaan kaa dalbayaa inaad ninkaaga jeclaatid oo aad la noolaatid oo aad nolol fiican kula joogtid oo aad asaga raalli garaysid oo aad wanaagga ku dadaashid
saas ayaan kaa dalbayaa ay tiri laakiin kuma odhanin aabbaha iyo hooyada ilow xaqiiqadu sidaa weeye muslimiintu ha dadaaleen rabbina ha ka bageen dardaarankaana gabdhaha ha la siiyo oo allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala nin walba iyo inan walboo muslimada inay khayr ku wada noolaadaan ayaa la doonayaa curuuska marka uu jiro afraax baa la ogol yahay gabayada qaarkood iyo in la garaaco dufbaha la yidhaahdo waxay tidhi gabadha la yidhaha rubayc bintu mucawid rasuulka ayaa ii soo galay sala allahu calayh wasalam habeenkii lay dhisay subaxnimadeeda gabdho yar yar oo gurbaan garaacaya oo ku heesaya bay tidhi aabbayaalkaygii hore oo lagu laayay dagaalkii ka dhacay yooma bucaad marka rasuulku ma uusan diidin xadiid macnaha tusiye bukhaari iyo muslim bukhaariyo wax ugu sugan yahay bayhaqi macnaha gabdho yar yar baa heesaya muusiga maahane waxay garaacayaan dufbahal kaliya gurbaanka rag kuma dhex jiraane waa keligood afraaxda la ogol yaha weeyaan oo maalmaha curuuska waxyaalo ayaa jira la saamaxay rasuulkuna waatuu yidhi sala allahu calayh wasalam faslu maa bayna alxalaali waalxaraami assawtu waddaf nasaa-i iyo tirmidi baa sanad sayaha ku soo saaray nikaaxa xalaasha iyo kan xaaraanta waxaa lagu kala yaqaanaa sawdka iyo gurbaanka oo macnaha laga sanqariyo oo la ogaado in meesha gabar lagu guursaday iyo in meesha dufka ka yeeray muusiqada iyo macaasibta maanta la garaacayo ee dabacsane laleeyaha waa macaayin xaaraan weeye mana banaana waxayna soo gelayaan dadka sameeyey xadiidka saxiixa ku sugnay ou nabigu yidhi layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasib ummaddayda waxaa ka mid noqon doona qoon zinada xariirta iyo muusiqada xallisha waana dad khayr daran laba sababna alla waa lacnaday adduun iyo aakhiraba yacni garaacid muusiqa la garaaco marka nicma timaado iyo marka musiibo dhacdo in la qayliyo la sawdeeyo oo la baroorto gurbaan baa la garaacayaa waa loo gagabayayaao gabdho yar yar baa u heesayo inanta la aroosayo waxaa waa loo ogol yahay laakiin waxyaalaha kale maanta la samaynaya maya wax si basaada ku jirto ayaa loo samaynaya oo gabadhii gurigoo lala joogo gawaarida lagu wareejinayo masawirka la keenayo suuqa laga mashxaradayo rag iyo dumar layska dig iyo dam leeyahay jeeska la wada cayaarayo inta safka la galo waalada la dheelayo kulligood xaaraan weeyaan dadka sameeyana cara allay leeyihiin guurarka lagu sameeyana waa laga shallaayayaa rabbi ha laga bogo oo diinta islaamka siday tahay ha loo ilaaliyo oo yaan ashyaada noocaasa lala imaanin oo afraaxda la ogolayo waa gurbaankaasiyo mashxaradaa yarta ay dumarku samaynayaan iyo gabadhoo loo heeso oo la yidhaahdo wanaag loo sheegay iyo ayadoon muusiqa la garaacayn rag iyo dumar laysku darayn qaawanaan iyo qurun aan meesha la keenayn ninka muslimkaa waxaa laga doonayaa haweentiisa inuu isu qurxiyo sida laga doonayo ayadu inay isugu qurxidoo kale ilaa alla waxau yidhi walahunna mitlu aladii calayhinna bilmacruuf waxaa u sugan dushooda waxa ayaga lagu leeyahay oo wanaagga oo kale ilaa ayaga waxaa laga rabaa ninka inay raalli gareeyaan isu qurxiyaan isu nadiifiyaan ninkana saasaa laga rabaa caaisha waxaa la su-aalay nabiga sala allahu calayh wasalam markuu gurga soo gelaya muxuu bilaabi jiray waxay tidhi qaalat bisiwaaq cadan ayaa ugu horreeya waxuu bilaabo waa xadiid muslim ku sugan sababtu waxa weeya nabiga markuu gurga soo galo haweenkiisa u sumi jiray afkoo soo uraya looma baahna ninka muslimkaana wax uga macaan badan ma jiraan isaga iyo haweenta subaxii markay kala tegayaan inay is-sumiyaan maalintii markay isu imaanayaan inay is-sumiyaan suminta la sheegayaa waa dhafoorado layska sumiyo waa waxa ay dadka maanta jiraa baasiyeen u yaqaaniin kuwa ciyaar suuqa oo kale ajnabiga waa is-sumiyaan ninka iyo naagta rabaa ma islayn kara dhafoorada inay iska sumiyaan faruuryaha inay iska sumiyaan saas ayaa la doonayaa qofba qofka kale dhareerkiisa inuu ku ganacsan yahay marka waa inuu ninku afka nadiifiyo gabadhu afka nadiifiso waatay muslimiintu yidhaahdeen markaad wanaag doonaysaan dharkiina nadiifiya sintiina nadiifiya cadayda isqurxiya isnadiifiya isisiineeya dumarkiinu say ay idin jeclaadaan nimankow saas ayaa lagula hadlay ragga rag iyo dumarkaba waxaa laga doonayaa inay arrinkaa fuliyaan dad garto oo guryaha wanaag ku dhaga oo alla ka bogo oo xagga ilaaliya allah ha naga dhigo muslimiintana guryahooda rabbi ha hagaajiyo mucaamalka dad barta oo wanaag ku wada noolaadana rabbi ha ka dhigo ragga iyo dumarka muslimiinta marka rabbi ha laga cabsado